nabiyee ayaa ugu dhibaato badnaa nabiyada wuxuu ku dhacay mise ma jira nabi curyaan aha waa laba su'aal oo muhiim ah nabiyaasha nabigeeba ugu dhib badnaa iyo nabi curyaan ma jira waa su'aal muhiim tan hore shan nabi baa jirta ulul azmi baa loo yaqaanaa dhibaato badan bay kala kulmeen ummaday ka dhasheen loo diray waanay adkaysteen shantaasaa ulul azmi loo bixiyey tartiibkoodii wujuudii ahaa ay adduunka yimaadeen nuux baa u horreeyey ibraahim baa ku xigay muusaa ku xigay ciisaa ku xigay محمد باود بي عليهم الصلاة والسلام وترتيبكودي زمنيغا أما ترتيبكوغا حق فضلغا نبي محمد باو فضل بدن نبي إبراهيم باكو حيغا نبي موسى كو حيغا نبي عيسى كو حيغا نبي نوح waxay ku gaareen fadligaasna waa sida ay u kala dhibaato badnaayeen nabi la arkaba dhibaato aad u tiro badan ayuu la kulmay idan nabiyaashaas وآيات لغو كلميي في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى آيات ولغو كلميي وفي سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم لغو كلميي أيها النبياشا أولي بدنا شنطوضة لكن إن الإرادة مركان نبي نوح إيغو وقتو قيليايي إيا دباتذو لكل مي هدا نبي موسى إيغو فرعون أو ألعن واحد على وجه الأرض إبليس وحدار ننكي لهر دمي إبليس وحدار فرعون نبي موسى لهر دمي محاجرا ننكي يري أنا ربكم الأعلى كهرنا يري ما علمت لكم من إله غيري ninkii la hardamay ee la halgamay ee ka guulaystay nin fudud maaha nabiyullaahi ciise sidoo kale kuwii loo diray ee uu ka dhashay baa isagii iyo hooyadii dood iyo muran ku furay shakhsiyadiisa u dhaawaceen oo kale nabiyullaahi ibraahim waa ogtihiin alla dartii in la gubay dhagax lagu tuuray colkii nabi ibraahim la dagaalamayey ee dabka ku ridaayeyna aabbihii hooyadii baa ka mid ah إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون نبي محمد قريش وحو كلا كل مي وهذا ركتين سيرة إذن كي نبضنا ما أوغي لكن انتس أيا أدبضنا نبي أن نبتوننا مجيو أوكتي وحي يوسف كل عي أما سؤال شقيب تهديدا بالنبي عريانا وحوي عريان إيا قوبو iyo biijo iyo faruurnaan iyo jawi iyo cudurrada caynkaasee la isku liidaba nabi kuma dhacaan maxaa jira ninkan waxa loo dirayba ummad inuu qanciyo wey kolka isagoo ama jiisa ama iloo cawaran hal aragtayba godlan mayse xigmiya caqliba kuma jirte nabiyaashu qorax iyo qiimi iyo qaws intaa isugu dar qurux oo abuuridii ah iyo qiimi oo dadnimadii ah iyo qaws ay reerka loo diray qawskii u dambeeyey ka dhasheen baa alla isugu dari jiray kolkaa goobi iyo jiisnimo iyo dhagala'aan indhala'aan curyaannimo biiji iyo faruurnaan jawi ma taqaaniin afkii soomaaliga raalli ahaada dhaliiloo dhanba male nabiyaashoo dhan waa wada ceebka saliin wabilaahi tawfiiq جزاك الله خيرا سؤالي هل كاس أيام